Qisadan waxay ku saabsan tahay nin dembi badan oo Ilaahay u dembi dhaafay. Qiso run ah oo cajiib ah. Waa qiso caan ah oo laga wariyay Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee kuna jirtay Saxiixul Muslim, taasoo cadeynaysa in naxariista Alle ay ka weyn tahay dambiyada bani'aadamka. Haddii uu qofka run ka noqdo toobadiisa, waxaa jiray nin 99 qof dilay, dembigiisa iyo gardarradiisu aad bay u badnaayeen. Maalin ayuu go'aansaday inuu toobad keeno, wuxuuna u tegay nin caalami ah baa'id cibaado badan oo uu weydiiyay, ma laga toobad qaadan karaa anigoo 99 qof dilay? Ninkii caalimka ahaa wuxuu yiri, maya, adiga toobad lagama aqbalayo. Markaas ayuu ninkii dambiilaha ahaa ka xanaaqay, wuuna dilay oo tiradiisii waxay noqotay 100 qof. Markaas kadib wuxuu mar kale u tegay caalami kale oo xaqiiqda yaqaanay oo fahamsanaa naxariista Alle. Wuxuu ninkii weydiiyay su'aashii hore, ma laga toobad qaadan karaa anigoo 100 qof dilay? Caalimkii wuxuu yiri, haa, Ilaahay dembi kasta wuu dhaafi karaa haddii aad si daacad ah u toobad keento. Wuxuu ninkii dambiilaha ahaa markaasi go'aansaday inuu ka guuro deegaanka uu ku dambiilay oo uu aado magaalo dadkeedu fiican yihiin si uu nolol wanaagsan u bilaabo. Intii uu wadadii ku jiray, wuxuu ku dhintay meel dhexe isagoo u socday wanaagga. Markaas ayay malaa'igta cadaabta iyo malaa'igta jannada isku murmeen. Kuwii cadaabta waxay yiraahdeen, waa dambiile, 100 qof ayuu dilay. kuwii jannadana waxay yiraahdeen wuxuu u socday toobada, qalbigiisana wuu dejiyay. Markaas ayuu Ilaahay amray in la cabiro masaafooyinkii u dhaxeeyay magaalada uu ka yimid iyo magaalada uu socday. Haddii uu ku dhow yahay magaalada wanaagga ah, janno ayuu mutaystay. Haddii uu ku dhow yahayna meesha uu dambiyada ka sameeyay, cadaabta ayuu mutaystay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray dhulka inuu isu rogo si ninkii uu ugu dhawaado magaalada wanaagsan. Taasna waxay cadeynaysaa naxariista Alle Ilaahay iyo sida uu ugu baahan yahay daacadnimada kaliya. Ilaahay wuu cafin karaa dambiyada waaweyn haddii toobad dhab ah la keeno. Dadka ha ka niyad jabin naxariista Alle. Qalbi daacad ah iyo talaabo wanaagsan midna lagama quusto.